بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa noo yimid wasiirka maaliyadda xukuumadda Imaan Biixi Cige iyo wafdi ka socda EU-da oo ay hogaaminayso safiiradda EU-da ee u joogta Soomaaliya Francesca Di Mauro iyo Sander van Koten oo ka socdo asagan EU-da xafiiskooda European Investment Bank oo ku yaalo Brussels. wafdigan waxay u yimaadeen waxay daba socdeen safar shaqo aan ugu tagnay magaalada Brussels aniga iyo wasiirka maaliyadda oo aan la kulanay madaxda European Unionka waan kaga hadlaynay dekedda cusub oo aan dhisi doono inay gacan naga siiyaan maalgeliyaan taas ayuu daba socday. markii maanta yimaadeenna waxaan u soo bandhignay dekedda waxay qabato iyo ta cusub waxaan ka doonayna inaan ka sameyno. kadib waxay doorteen inay soo booqdaan ama ay dekedda soo fiiriyaan arkeen hawsha ka socda dekedda baraakiibta dekedda kusoo xiratay kuwa laga shaqeynayo kuwa mataqaana waday raashinka iyo mataqaana kontainarada waday iyo sida ay shaqaalaha dekedda si wanaagsan u qabanayaan. waxay ognahay in sanadka hore dekedda muqdisho ay ahayd dekedda labaad East Africa ama mataqaana iyo saxaraha Africa berberan ay ahayd ta koowaad. sanadkan bishii hore waxaa iyagana baaritaan ay sameeyeen World Bank ay soo saareen index oo caddeynayo in dekedda muqdisho ay noqotay dekedda koowaad bariga Africa. waxay kaloo noqotay dekedda afraad ee qaaradda Africa. taas waxaa rabaa inuu hambaleeyo shaqaalaha dekedda ka shaqeeya oo howl wanaagsan qabtay. waxaan rajeynaynaa inaan sii wadno dadaalka aan sii wadno oo noqono dekedda ugu wanaagsan mataqaanaa ugu tayo wanaagsan. waxay ahayd shir ama kulan aad u fiican. waxaan rajeynaynaa inuu kulankaana mid kale uu daba socdo.